nin la yiraahdo Abdul Haq oo ka soo naqliya Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ayaa wuxuu yiri qila li rajulin mimman a'rifu wuxuu yiri waxa lagu yiri nin oo kamida dadka aniga aan aqiinay dabcan wuxuu ahaa dadka aad adduunyada u qaabilay waa dadka adduunyada ku mashquulay ee aakhira ka mashquul waxa lagu yiri buu yiri ninkaani qul la ilaha illa allah war hebelo waxa tiraahdaa la ilaha illa allah markay geeridu u soo xaaday oo ku jira sakaratul maut ayaa waxa la damcay in loo laqino kalimatu tawhid la ilaha illa allah faja'ala yaqulu wuxuu gudagalay inuu leeyahay ad-darul fulaniyya aslihu fiha guriga hebela hal la hagaajiyo waxaasi halaga qabo wal bustanul fulani if'alu fihi kada wa kada beerta meel hebla ku taalana waxa laga sameeyo hada sakaratul maut ku jira meeshii ugu dambayso maraya waxaana ku taagan wixii marka hore uu xooga saaray wixii marka hore uu ku mashquul taasi waxay keentay inuu ka mashquulo amaba la waafajin waayo inuu yiraahdo la ilaha illa allah hay'atu la ilaha illa allah ku dhinto khaatimo wanaagsan oo ku dhinto waa soo marna min calaamaat husn al-khatim waa diido waa la karsiin waxay tusaale u tahay al-iqbalu ala ad-dunya wal-i'rad 'an al-akhirah inay kamid tahay asbaabaha kuwa ugu waaweyn ee keenay qofka inuu khaatimo xun ku dhinto waxa la mid ah macaasida iyo dunuubta dadka maaragtay aad iyo aad ula yimaada ama ku mashquula ee qalbigooda gaafilka uu ka yahay can dhikri Ilaahi subhanahu wa ta'ala ayagana waxay u badan yihiin in khaatimo xun lagu dilo ciyadan billah al-imam Ibn al-Qayyim wuxuu sheegay qisooyin fara badan oo laga soo naqliyay rag maaragtay ku dhintay khaatimo xun mid walba ka midana sababta khaatimada xun ugu dhintay ay ahayd xumaan iyo dunuub marka hore uu ku jiray iyo inuu ka mashquulay oo gaafil ka noqday can cibaadati Ilaahi subhanahu wa ta'ala wa can daari al-aakhirah adduunyada oo aad ugu mashquulay wuxuu yiri Ibn al-Qayyim rahimahullah qila li ba'd al-hadirin qul la ilaha illa allah qala la astati'u an aqulaha ma awoodi karo buu yiri inaan iraahdo hada lama gaarin qabrigi iyo su'aalihi oo dhihi lahaa la adri sami'tu an-nas yaquluna shay'an faqul hada adduunyadii ka sii baxaya asoo adduunyadii ka sii baxaya markii la yiri war kalimatu tawhid ku dhawaaq ayuu yiri la adri la astati'u an aqulaha ma awoodi karo buu yiri inaan kalimadaasi ku dhawaaq arabkiisa soo qabo subhanallah wa arrin ajiiba wa awoodi waayo inuu ku dhawaaq la ilaha illa allah ilaahay waa ka xabisay arab maxaa Allah wuxuu ugu talagalay subhanahu wa ta'ala inuu ku dhinto khaatimo waqila li aakhar mid kale waxa lagu yiri qul la ilaha illa allah war la ilaha illa allah faja'ala yahdi bil ghina wuxuu gudagalay inuu heesa tirinayo wa yaqulu awliya taatina tantana wa heesihi garaacoodi dabcan wax la socdo hatta qudiya ila la oofsaday ninka heeso aad u danaynay macsiyadaas aad u laazimay markii geerida u soo xaadirtay heestiiba wuxuu ka doortay inuu la ilaha illa allah yiri ilaha seejinaya subhanahu wa ta'ala waxay daliil u tahay qofka haduu macsiyad daa'imo macsiyadaasna uu qaabilo in ayada loo khatimayo illa in Allah naxariisto ilaahay cafiyo mooyo waa arrin khatarteeda waqila li aakhar mid kale waxa lagu yiri qul la ilaha illa allah faqala wuxuu yiri wama yanfa'uni ma taqul hay taraysa bir waxa aad leed walam ada' macsiyatan illa rakabtuha kama tagin buu yiri macsiyo illa waa la imid marka la ilaha illa allah hadda daa'irada maxay taraysa macsiyo wax ma jirto illa waa la imido horabaan u sameeyay thumma qudiya walam yaqulha kadibna ninkii waa la oofsaday oo waa dhintay asoon kalimadaasi aan ku dhawaaq markii la yiraahdo la ilaha illa allah wuxuu ku celinayaa ma yanfa'uni ma taqul maxay anfacaysa waxa aad leedahay maxay taraya walam ada' wal hal lam ada' macsiyatan macsiya aan ka tagin illa rakabtuha illa wallahi halkaas hadalkaas ku celinay ila geeridu ay u timid oo sida uu ku dhintay asoon dhihin la ilaha illa allah waqila li aakhar mid kale waxa lagu yiri qul la ilaha illa allah wa khatimadii markaasuu yiri wa huwa yaqulu asagoo dhahay hadhihi alqit'atu rakhisa hada mushtarin jayyid daru iiminay geeridii ba u soo xaadirtay markaasuu leeyahay qit'adan waa rakhiis waa qiimo jaban tahay badeecadan la soo iibiyo waa badeeco wanaagsan adduunyadii wali kala shaandhaynay geeridiyaana u taagan oo naftu waa ka socota waxaana la rabaa in la yiraahdo war la ilaha illa allah markaasuu leeyahay kana waa rakhiis kana waa qaali kana waa wanaagsan maxaa yeelay adduunyadii sida u qaabilay aakhira buu i'raad ka sameeyay ilaahay subhanahu wa ta'ala khatimadii wanaagsan waa seey waxa loo khatimay khatima sayyi ciyadan billah hatta qudiya ila la oofsaday ila uu ka dhimanay ninkaas hadalladaas ku celcelin qaybtan waa qaali qaybtan waa rakhiis waxa kale oo uu sheegay Ibn al-Qayyim rahimahullah in qaarkood ayadoo leeyahay la ilaha illa allah oo leeyahay toban ku dhufo xisaabaadu isku dhufana kaasoo le intaas soo baxays ila adduunyadii uu jamcinay ayadiya ku taagan waa wuxuu marka hore hamigiisa ahaa tusaalooyinkan oo dhan waxay daliil u yihiin ay tusinayaan hadalkii Imam Ibn al-Qayyim uu yiraahday min a'zami asbaabi suu'i al-khatima wa al-inkibaabu 'ala ad-dunya wal-i'raad 'an al-ukhra yabahan oo tusaale u yihiin in adduunyadii la qaabilo aakhiran la laga jeeso hadii aan rabna marka ilaahay subhanahu wa ta'ala uu nugu dila khatima hasana wa in hamigeenu aakhira noqdo
هميين وإنه آخرا وحا أن كفكريناه وإن نقطه إن إلهي نبدبادي سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون مال هنتي عرور يسوع بكوتر هميجا وإنه نقضه سيدا إلهي أولا كل ملهي سبحانه وتعالى وهو راض عنك فسو إلهي سبحانه وتعالى وكار لي سأولا كل مل لكن هميجا وسن الدنيا نقض هدي هميجا الدنيا نقضه وحي سبب يسا أسباب بدر قفك هميجي سو الدنيا نقضه حيابه أسباب يسا وحا كمدا إنه طاعاتك كجابي أما بالكلية وأكتر ولا أركتان ضد بدر الدنيا كشق يستاهي صلاتها متكدان أرى صلاة متكدان طبعا كدقيقة صلاة وتكنا يوحو أركاب إنه فائدة ضعفة فوائد الدنيا كم مركزو تكان كده فديا أما شقدي وكوجد جرا أيو كشق يسنايا أيضا صلاة المسلمين أي تكنايا هميجي سو الدنيا هميجي سو حوا يسوع علوشي سو كوري ده أهلي لا آخرة كفكرين إذا كاسو كلا إلهي وحقوق ختمة يا خاتمة وكو هذا اللي جش كينا يو لو ختمة يو حوا إن الديدان أما يكون واقع ويان كلمة التوحيد معها أرمها ابن القيم الشيء يا وح ابن القيم وقت جيس كلية ضعيم أو وقت كان حتى حاضر كذا بدنا الله شيء أو أنت الله دمع إن لون لقنا لا إله إلا الله لو كريوة أو ذي كريوة وحاكم إذا ضدك هم يقولوا يا هي أما آد ما أردت ومشغول سن إن إلهي غيرك عابدان سبحانه وتعالى قارن نفط وحي وقد على أصوشي عبد القادر وقل لا إله إلا الله مركز الله الشيخ أويس نفط وقد بحس أصو أويس شيء محو أويس وقبكرة محو تري كرمله لا ينفع ولا يضر كلمة التوحيد نواقنا معايا لمركه هرو عافمات قبي أي وركن كعل عليجي على الربع عرب كاجا إنا وناقب عرب كاجا إنا التوحيد كي السنة ضبط عرب كاجا طاعة إلهي سبحانه وتعالى إن الله قصر مركز وحى قوف ضانية إلا إله إلا الله إيه طاعة إيه خير كأد كنا واضي إله قوف ضانية سبحانه وتعالى لكن ما هدي أد مركه هرو كم مشغول سنيد معاصي ذنوب سيضبط هذا هو مشغول سيه أو أن لازمت على المعاصي والذنوب أرنتاسي وحي سامين كويا لدون تاوحى أد كل من يسير لبو ختمة أعماشنا سيد النبي الشيخ صلى الله عليه وسلم وبالخواتيم أو يحقق الله ختمة يوم قفك مركه خاتمة سيئة الدنيا ضوء بحر قفك سوى الله بقى يخشى عليه من عذاب الله عذابك إلهي بالله بقى سبحانه وتعالى قفك خاتمة وناكسم كل انتنا خير بدنا لو رجينا يا واسدي بريد بن حسين رضي الله عنه وهو فرحة ينك ولالك أها مركو أركي أما وكأركي علامات كمدة من علامات حسن الخاتم فرحدر تيضوحوا إلى الله أكبر وكو فرحي علامته إي أستانتي كمدة من علامات حسن الخاتم إن ولالك أي كم وضع مرك الله شك ولا دمني أفضل بنا أجش ويمانيس لكن أجش ما وحي كو إماد دونتا أضر معصية دحفردية ما سوحي كو إيمانيس أضر طاعة إلهي كد ذلك هذه أكل وين هذه أكل في عين أهل العلم وحا كمدة قارب انت أيوه سجود سنة الإمام مجاهد عليه رحمة الله من علامات حسن الخاتم عمل صالح وجليل مات وهو ساجد أصل سجود سن أيا جيرد أتمد رحمه الله علماء وحي كشاغن في ترجمته قال أيوه صلاة الليل كأتاغن أيا جيرد أتمد وإلهي عابده سبحانه وتعالى نمك مركا أصل صلاة الليل تكن يدنت هي متكي دنت أصل تنتنا كهي كلو وناكسن وكل هذه أكل الديرين لبضع وكافي أكل الديرين لكن مركا هي سهل دنيني أفر يلباتن كساعنا بيوه ذكو مشغولين قرآن كريم كان أن نجيسن ذكر إله وحي خطر وجيران تنتنا داس إن الله خطر وعماش أصحون هي كوب الجيران يا معاصي داس نجوه ذا أي مكانيين إن إله سبحانه وتعالى خاتم حموان وعلوا بها يا مرك ولا ليال جزاكم الله خيرا إن كد ذالنا إن إلهي نوافجي حسن الخاتم التوفيق ومن الله لكن أنك وحنا الجرب اجتهاد يددا وعنه لجبها هي الرجوع إلى الله عز وجل قبل فوات الأوان أنت أنا وقتنا ضعفين كهر إن إلهي أمنغنه سبحانه وتعالى أسبابه كيني كرا خاتمه وناس إن كل من أنا أن كد ذالنا وح الله وحي كينا يا خاتمهم